أنا وصار دي شيء جاي هرت ده هذا كان يسوي موضوع كله أورد كيف كسهلنا وحنا بدين تعبنا يا كل يبقى أنا وصومالي بانا أنا مجا صومالي يشرفتي سيكون كيسة يوحي هاي بانشالله dadkii sanaan jeclahay dalkii sanaan jeclahay inta uu magacayga aad uu ku maqasheen oo ku aragteen intaas un bay ahay marka taa inaan xoogaa ka taabto oo de wax badan laga oran karo in yar farad togaaliyo inaan iraahdo bal horta Soomaalidu maxay ahay Soomaali meemanka maxay noqotay iyo Soomaali meemanka maxay u dana iyo xoogay bal orodkaygiina inaan xoogaa idin yar dul cararo Soomaalidu maxay ahay Soomaalidu maanta ilaa adduunka way isku wareeraysan marka wada hadlaysaan iyo sawirka ay maanta ka haystaan iyo ka ay Soomaali ahay Soomaali miyana ahayn tii waligeed cisiga iyo sharafta ku noolayd qarnigii afraad iyo toddobaad iyo kii 13aad iyo kii 17aad ba Soomaali tii waligeed dadkii isqiimeyn jiray oo sharafta lahaa miyana ahayn Soomaaliya miyana ahayn dadkii gobannimo iyo geesinimo iyo martigelinba adduunka buugtooda dhan lagu qoray miyana ahayn Soomaali miyana ahayn kuwii xornimo u dirirka iyo gobannimada halgankeedii hogaaminayay iyaga ma aha Afrika oo dhan miyana ahayn kuwii Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo intay lugaha ku jiidanayeenba markay u caalwaayeen Soomaaliya miyaanay noqon meeshii ugu horeysay ay markay madfac iyo diyaarad iyo mid markab laga soo tuuro ugu caalwaayeen foodana gali waayeen diyaaradaha ku duqeeyeen ee Afrika ugu horeysay miyaanay inay talix burburinayeen Soomaali tii Axmed Guriya Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan ka dhasheen miyaanay ahayn Soomaali tii waligeed isku duubnayd miyana ahayn Soomaali tii markay xornimadeeda soo dhacsatay Afrikana in badan hogaamisay oo u soo dhicisay tii iyadu markay qaadatay xornimada dimuqraadiyadan maanta adduunka oo dhan sanka laga marmariyo oo lagu faano tii iyadu ugu horeysay Afrika qaadatay miyana ahayn ee kala dambeynteedii iyo sharcigeedii iyo dastuurkeedii iyo electionkeedii oo qof waliba codkiisa dhiibanayay madaxweynihii ugu horeeyay Allah uu naxariistay aadan cadde uu kaga digay Soomaali miyana taa ahayn Soomaali tii adduunka Afrika oo dhan horumarka kaga deynayeen miyana ahayn tii Soomaali afkeeda hooyo intay qoratay dawladaha ugu horeeyay ee qortay ahaa ee ilaa maamul iyo waxbarasho iyo ku dhaqan gamcahooda biyo kaga dhargay miyana ahayn afka caadi ma ahayn Soomaali tii tacliinteeda ilaa dugsiga hoose ilaa jaamacadu bilaash ahayd oo ardayda jaamacada ku jirta bukad mariga la siin jiray gunada miyana ahayn adduunka kama dhacdo tii dadkeeda caafimaadka bilaashka wada gaarsiisay miyana Soomaali ahayn Soomaaliyeenu niqiin miyana ahayn Soomaaliya dadkii sharafta badnaa ee waxa weeye hanka weynaa ee dhaqankooda iyo dhaladkoodaba ku faani jiray miyana Soomaaliya ahayn maxaa ku dhacay Soomaalidii caynka ahayd oo aynu isla wada garanaynay xagee aaday maxay noqotay imanka tamaanta dhacday oo de laga yaabo inta aniga iga daada yari inaanay garanaynba dawaatanaynu maanta u jeedno dal Dubai oo khariidadba ka sii baxaya dad haddii aanay istaba qaban dabar go'aya dad tahriib iyo talala'aan ku dhammaaday dad loo tashaday oo laga tashaday oo la qabsaday oo la kala qaybiyay oo aan isogeyn xaaladeenu meel xun bay maraysaa xaaladeenu 4.5 bay maraysaa bal 4.5 aan kalmad ka soo qabtaba yani waxa weeye
markii salaada la soo dejiyay alayhi salaatu wasalaam nabigeeni konton baa loo dhiibay baa la yiri ummadaadii u geey markaasuu ilaahay casaawo jalla intuu ku noqday yiri dadkayga ilaahay konton waa ku badantay ka daa si uu noqnoqonayay ayaa 5 looga soo reebay 4.5 ma wax dad loola yimaadaaba ummadeena meesha ka qaldantahay waxyaabaha kamid waxa kamid ilaa soo diri imbegeti xaqan marba shir baa la inoogu soo qabtaa dad baa wax la inoogu soo dhiiba sidoodii iyagoo inoo wada oo aan oran war waxani wax dadka iyagii la hortagi karo maaha ayaa la inoo keenaa waxaad ku tiraahdaa dadkaagi waa kuwaase dibic shanbaati war Soomaali waati arrimaheedu aanay islaan jirin ee geedka ku dhamaysan jirtay garteeda Soomaali waati afarta faatixo isu mari jirtay kala dhaqaaqi jirtay Soomaali waatu iminka inoo sheegay professorkii uu lahaa isku mid baatiin isku afbaatiin isku dhaqan baatiin xagee baladu idinka haysata waatu hibadeena inoo sheegay uu lahaa dad aad u maskaxad badan baatiin laakiin isma ogidin aan waxaan oran lahaa aynu istaba qabanno aynu hanweynidii iyo yani dhigtii iyo dhaqankii aynu ilaashin jirnay aan ku soo noqono qof waliba naftiisuna ka bilaabay haddaad naftaada u sharaftid waxa kale waa iman karaya oo de waxa weeye Soomaalidu waxa la oran jiray qofkaasi dhigtii buu dilay waxaasi dhigtii buu dilay waan kalmad xun laga maqal haddii adiga laga maqlo gurigaaga laga maqlo xaafadda laga maqlo magaalada dhan laga wax war magaaladaas magaalo khayr lama aha waa ya marka taa laga taxadiro waxaan idin gelayaa un xalku waxa weeye iyadoo Soomaaliya gamcaha isqabsato midowdo dantooda garato jiilka dambena uu garto in baan weydiiyo waxaan ku iri xagee baladu ka dhacday markaasuu yiri dadkii gobonimada keenay 60kii iyadoo bahashiyo fiican baysan noogu dhiibeen annaguna wuxuu yiri 20 jiraan ahayn islaha xoogay waxbaad barateen markaasaan annaguna ku loo farnay buu yiri ilaa 60kii ilaa 90kii baan ku ciyaarayno xagga u ridnay annaga ku tumanay buu yiri wax kale yaan leedin sheegay dhalinyarada iminka joogta marka inay iyaguna sida goboladan iyo degmooyinkan iyo kala qaybintan iyo qabyaaladan iyo qabiilkan iyo qaraabo goyskan inaanay ku soconay mar wada gartaan war wada jirbadantu ku jirtay aynu mar Soomaalinimadii iyo magaci sharafta lahaa aynu dib ugu soo noqono inta haddaan ka gudbo halka waxa la leeyahay 5 daqiiqo hadhay waxa ban moodayay inaan daqiiqo hadlay ninkayga hadalka ka baqay orodkii aan idin ku noqdo runtii waxa weeye waad ka daragsantiin Cabdi Bilay iyo orodkiisii iyo guushii waqti yar oo iska kooban bay ahayd 30 sano ka hor bay ahayd ilaahay cimriga ha inoo dheereeyo taa waad ka daragsantiin laakiin in yar baan idin ka sheegaya waxa weeye hamiga caawa dhamaan ka hadlayna waxa weeye qofka bini aadamka hadii uu leeyahay hami inuu meel gaadho hadii uu ku dadaalo ilaahayna la qabto uu gaadhaa aniga hamigayga yar oo koobnaa midaan luga ku taagnayn buu ahaa Soomaaliya aan internet lahayn TV-na lahayn wax kale lahayn hamigii yaraa dalka dhexdiisa ka bilowday ee buuraha laascaanood ka bilowday adduunkan soo jebinaya waxa la yiri war hayay waa balukaadi intii ka dambeysana waad la socotaan guushaas iyo wixii ay ahayd meeshan ka gaadhay biladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee 30 sano ka hor waxa weeye aynu qaadanay okay laba wax marka hamiga waa la gaaraa mid sarena hal la yeesho laakiin laba wax baan idin ka sheegaya laynka markaan taagnaa culayska i hayay horta halgankii iyo isaga waxa weeye rough road iyo kidkid wixii aan maray taa idin ka sheekayn maayo laakiin dib badan bay ahayd laakiin laynka markaan taagnaa waxaan dareemayay in Soomaali oo dhami barasharka isaarnaa iyo culayska inay dhamaantood inta la soo qaaday dusha iga fuule markaan ka yaabay anigiiba waxay sironiyo geeli iyo loodina miyay soo kaxaysteen ya horta dhibtaasay ahayd laakiin
guul waliba dhadhan iyo macaan bay leedahay iyo meel ay ku dhamaato waxa weeye anigoo dalka Talyaaniga jooga inaan ku qaaday dalka Talyaanigu muxuu ahaa dalkii ina gumaysanayay dalkiisii ayay ahayd waxaan ka qaaday Ingiriis ninkii adduunka haystay ee Ingiriiska ahaa waa kii ina gumaysanayay markaas ayaa calankeenii la saaray ninka saddexaad wuxuu ahaa Mareykan oo waxa calankeenu ka sareeyay oo ka hoos babanayay calankii Mareykanka markaas musigeeni la saaray aniga secondkaas daqiiqada iyada ah oo aan dhex taaganahay adduunkii oo dhan calankaygii u taagan way dalkii Talyaaniga tahay kii webiga nagaga gudbayay way tahay Ingiriiskii oo waxaanu isla soo marnay taleexaan anigu ka yimid kii duqeynayay oo maanta calankaygiina saaran yahay ayna u taagan yihiin musigayagiina dhageysanayaan guusha waa la gaadhaa aniguna dadka qof kasta oo himilo leh waxaan ku iraahdaa hadduu dadkeenu dadka waa niyad jebiyaan dadki waxaynu nahay runtii aniga baraka inaynu dadka ugu xun ee dadka niyad jebiyanahay marka haddii anigu waxaan jecelahay qof bini aadam yiraahdo cirkan tegaya inay yiraahdo wardayaxa iyo daruurahana ku siinaso soomaad garan ya cadceeduna taako ya cadceedu dalaalnimo soomaad garan insha Allah guul baan inoo rajaynayaa Soomaali baan ahay magaca Soomaali hadii la wada qiimeeyo lagu faanana meel baynu gaaraynaa insha Allah Soomaali